kusoo qaadanaynaa qisadeena sirtii boqorka ee qarsooneed. waxaa jiray nin boqor ah. boqorkaasi farxad ma uusan haysan oo murugo aad iyo aad u fara badan ayaa qalbigiisa ku jirtay oo ku bijirtay. markii uu xukunka qabsanayay ayaa gabar yar uu dhalay laga xaday, meel uu ka doonana waa waayay. sidoo kale intaas waxaa usii dheereed murugo kale oo maalinkii uu aqli yeeshay ilaa ay markuu weynaaday taba joogtay. sababtoo ah boqorka waxa uu lahaa dhaga dhaadheer oo dhagaha dameerka shabaho. had iyo jeerna waa uu qaran jiray oo cid arki jirtayba ma aysan jirin aan ka ahayn timajaraha tinta asaga u jaro. timajarahaasoo nin oday ah oo ilaa iyo aabihiis la soo shaqeeyey yaraantiisii ilaa iyo ka weynaan tinta u jiray oo marnaba aan sirtiisa aanan bixin. timajarihii ayaa geeriyooday. kadibna dadkii asaga la shaqaynayay ee ka agdhowaa ayuu waxa uu yidhaahday, waxaan doonayaa timajaro aad iyo aad u wanaagsan oo tinta ii jaro, midkaas oo sirna aan bixinaynin. kadibna waxay u keeneen nin timajaro ah, kii isdhahayeen waa ugu fiican yahay jaritaanka timaha. boqorkii markii ay sheekaysteen oo ogaaday ayuu wuxuu iska bixiyey koofidii. ninkii timajarahana asaga u fiirsan ayaa waxa uu yidhaahday, boqorow dhaga dameer ayaad leedahay. boqorkii aad iyo aad warkii u xanaaqay, koofidiisii ayuu gashtay. asagana waxa uu amray in la xiro xabsi la geliyo. xabsigii ayaana sidaas loogu tuuray. boqorkii waxa uu amray timajaro kale in loo keeno. sidaas ayaa maalin kasta timajaro loogu keenayay. ku kastana markii uu isu gafaana xabsiga ayaa loo taxaabayay. timajaro kasta oo guriga boqorka galana dib dambe uma uusan soo baxaynin ilaa ay timajarayaashii kala dhuunteen oo mid kasta isleeyahay, ilaahayu boqorka yuusan fariin kuu soo dirin. hebelaa la wacay waa la xiray, hebelaa la wacay waa la xiray. ayagoo timajarayaashii kala dhuunteen qaarna ay magaalada ka haajireen ayaa wiil dhalinyaro ah oo magaalada timajaro ka ahaa ayaa waxa uu doortay in uu la kulmo boqorka si uu timajarihiisa qaaska ah oo u noqdo. sababtaa wiilkan hooyadiis had iyo jeer waxa ay ku hamin jirtay in uu guursado gabar amiirad ah, asagana uu amiir noqdo. wayna kula tarin jirtay oo waxay dhihi jirtay, hooyoy kor fiiri, hoos ha u noqon. waxaan doonayaa in aad heer gaartid, adduunyada heer sare aad ka gaartid, farxad aad ku noolaatid. annaga ayaa nolol cariiri ah ku soo jiri jirnay. kadib taladii hooyadiis markii uu qaatay waxa uu isdhahay, halka kaliya aad heerkan ka gaari kartid waa in aad qasriga geshid oo boqorka aad ka agdhowaatid. boqorkii ayuu la kulmay. waxa uuna yidhaahday, boqorow waxaan doonayaa inaan timajaraha qaaska ah noqdo. boqorkii koofidii ayuu iska bixiyey. wiilkana wuxuu yidhahday, boqorow waa hagaag, timahagu way fiican yihiin, waana lagu jarayaa. boqorkii oo dareensan wiilka in uu hoos fiirinayay ayaa yidhaahday, kor soo fiiri. kor markii uu fiirshay ayuu waxa uu arkay boqorka in uu dhago dameer uu leeyahay. waxa uu yidhaahday, boqorow waa caadi, dhagahaagu way qurux badan yihiin. boqorkiina waxa uu yidhaahday, hagaag, adiga ayaa noqonaya timajarahayga qaaska ah, laakiin waxaa shardi ah in aadan cidna warkayga aadan la wadaagi doonin. haddii aan magaalada ka maqlo in dhagahayga ay dhaadheer yihiin oo dhagaha dameerka oo kale ay yihiin, waxaad ogaataa in aan kuu taxaabi doono xabsiga, weligaana aad xabsiga ku jiri doontid. wiilkiina arrinkii ayuu qaatay, waa uuna ka yeelay. sidaas ayuu waxa uu ku noqday ninka timaha boqorka u jaro ee guriga qasrigana ka agdhow. maalinba maalinta ka dambeyso boqorka agtiisa waxa uu ka yeelinayay darajo aad iyo aad u sareyso. nimankii kale ee timajarayaasha ahaa ee aadka ula yaabi jiray nin kasta oo timajaro ah ee boqorka gurigiisa gala aan dib dambe u soo noqonayn ayaa haddana waxa ay la yaabeen
wiilkan yari sida uu ku noqday kan boqorka oo ku kalsoon yahay, timahana had iyo jeer oo u jaro. marka dambeysana kor ayay magaciisa iyo darajadiisaba u sii kordhisay. arrintaas ayay aad iyo aad u xumaadeen, wayna ka maseereen. waxa ay yidhaahdeen, ninkani agteen wuxuu ka ah faqiir, haddana heerkaas ayuu gaarayaa. waa inaan ku dirnaa boqorka, waa inaan kala geynaa boqorka iyo asaga. nin ayaa loo wakiishay in uu boqorka la kulmo una sheego xumaatada oo wiilkan la wareegayo magaalada. waxay sheegeen in uu dhibaato iyo xumaan oo magaalada ka wado, laakiin sirta boqorka ma aysan ogeyni. isagana haddii uu wareystay wax sirtiisa ku saabsan ayuu ka waayay. kadibna waxa uu ogaaday in ay been sheegayaan, oo haddii uu inuu caayo rabo oo sirta sheegi lahaa, waxuuna amray in la xiro. laakiin wiilkii ayaa u imaaday, boqoroo iska cafi, waa nin iska masaakiina, xaasidnimo ayaa qaaday. sidaas ayaa boqorkii wuxuu ku cafiyey kii timo jaraha ahaa ayaa lagu cafiyey. arrintaas in muddo ah ayay socotay. wiilkiina sidaas ayuu wuxuu timo ugu jari jiray boqorka, laakiin sirtii ayaa aad iyo aad u dhibtay. waxa uu damcay sirtan fiiraha ku jirto amay markaa fakataa. haddana waxa uu siraaday, meeshaan ka tag, meel duura aad. kadibna sirtii oo lagu xilsaaray soo sheeg. wiilkii safar ayuu iska galay, kadib meel duur ah ayuu tegay. geed hoostiisa ayuu fadhiistay. geedkii hoostiisa ayuu wuxuu ku yidhaahday, boqorku dhaga dameer ayuu leeyahay, boqorka dhaga dameer ayuu leeyahay. kadib markii uu nafisay ayuu dib isaga soo noqday. markuu soo baxay ayuu waxa uu meeshii waddada ka helay dahab. dahabkaas aad iyo aad u qurux badnaa. dahabkii 2 jab oo dahabkii markuu helay, jab ayaa ka maqan jabkii kale dahabkii. kadib wadankii ayuu ku wareegay. dadkii ayuu wuxuu dhahayay yaa uu ka maqan yahay dahab, laakiina cidina mu isa arag. gabar meel oo biyo joogto u tagay wuxuu yidhaahday, dahab miyuu kaa maqan yahay? ayadan waxay tiraad, itus dahabkan. haa, waa dahabkaygii. laakiin waxa uu dareemay in aysan dahabka ayada aysan lahayn. waxau sii socdaba waxa uu la kulmay gabadhii ayuu wuxuu yidhaahday, dahab ayaa arkay, yaa iska leh? waxay dhahday, dahabkan aniga ayaa iska leh. oo jabkiisii kale waa kana. waxuu yidhaahday, arrinkaadu muxuu yahay? waxa ay dhahday, aniga oo yar ayaa familkaygii dad iga soo qaateen. inta ayay igu korinayeen, qoyska aan ka soo jeedo anigu ma ogi, laakiin alaabtan aabbahay ayaa i siiyey. waxa uuna jeclaa, anna waa jeclaa, laakiin nimankan ayaa i soo xaday. meeshaan ayay keeneen. in muddo ah ayay igu hayeen. hadda waan weynaaday, waxayna rabaan hadda nin aanan rabin oon jecleen in ay igu daraan. kadibna wuxuu yidhaahday, uu soo kaxeeyey oo waxa uu keenay gurigoodii ayuu keenay. kadib markii magaalada soo galay ayaa waxa uu arkay nin magaaladii oo isla dhex marayso. boqorka dhaga dameer ayuu leeyahay. wiilkiina boqorka ayuu u tegay. boqorow wuxuu yidhi, aniga arrintan cid aan u sheegay ma lahan, qof aan la wadaagay ma lahan. safar un baan aaday, waana soo noqday. magaalada oo warkan ku jiro ayaan u imaaday. boqorkiina wuxuu yidhaahday, haye waa hagaag, waa in lasoo baaraa qofka warkan magaalada keenay. sidii qofba qof loogu tegayay ayaa waxaa lagu tegay wiil ari raac ah. ayaa caddaatay warkan inuu magaalada keenay. isagana waa la weydiiyey. waxaa la yidhaahday, warkan intee ka keentay? waxa uu yidhaahday, meel heblaayo geedkaas ayaan ka maqlay asaga oo dhahayo. markuu calimaan raxmo, boqorka dhaga dameer ayuu leeyahay. boqorkii ayaa xanaaqay oo waxa uu yidhaahday, ma annagaa nugu dhadheelaysaa? yaa oo aad waxaasaa noo keentay, waa inaan ku dilaa. kadib wiilkii ayaa waxau yidhaahday, boqorow bal haan soo aragna geedkuu sheegayay. wiilkiina wuxuu yidhi, ari raaciina, haa hataad soo aragtid wuu daldalayaaba. warkaas ayuu wadaa.
kadib boqorkii ciidankiisii ayay soo baxeen waxa ay soo aadeen geedkii oo wiilkan uu sheegayay. geedkii markay imaadeenna waaba uu ku foorinayaa oo boqorka dhaga dameer ayuu leeyahay ayuu daldalayaa. boqorkii wuu yaabay, aad iyo aad ayuu u naxay. kii ayaa waxa uu yidhaahday, boqorow, aniga xumaan kama wadin, marka arrintan sirtan qarin waaye ayaa ama dad u sheegtaa dhahday. intaa ayaan imaaday meeshaan waxaan ku idhaahday boqorka dhaga dameer ayuu leeyahay. boqorka dhaga dameer ayuu leeyahay, ma ogi aniga, ma jinniyaa joogay, si waxu jiraan ma ogi, cid kale aan la wadaagayna ma lahan. boqorkii meeshii uu ka xanaaqi lahaa ma uusan xanaaqin ee koofidii ayuu iska bixiyey. wiilkiina way soo noqdeen oo isagoo ciidankii arkayaan oo boqorkii dhagihiisa dhaadheer yihiin ayuu wuxuu ku soo noqday gurigiisii. waxa uu yidhaha, hatore maxaan u qarinayaa? yaa xigmadda iyo caqliga dhagaha kuma jiraan ee xukunka qalbiga ayuu ku jiraa. anna dadkan ayaan u taliya, boqorkooda ayaan ahay, wayna i jecel yihiin, maxaan dhagahan ka qarqarinayaa? adeer waana iska dhadheeraadaan. gurigii markii la imaaday u sheekeeyey ayuu waxa uu yidhaahday, halkaas anagu marayo ayaan katiin helay. katiinkaas ayaan 2 maal 3 maal qofkii lahaa ku raadinayay. gabar yaroo dhalinyaro ah ayay noqotay. jabka saas u ahaa, kaas kalankaasoo ahaa. boqorka ayaa soo booday, allow waa gabadhaydii, katiinka noocaas ah aniga ayaa siiyey, anna waalidkay ayaan ka dhaxlay. waa kaa xunka qabsanayay ayaana laga dhacay gabadhaas. kadibna way soo baxeen, wiilkii damajiri gurigiisii ayay imaadeen. haddii uu arkayba waa gabadhiisii. kadibna wiilkii damajiraha aaminka ahaa ayuu gabadhiisii siiyey oo guursaday. wiilkii hooyadiisna sidaas ayay waxay ku heshay riyadii ay in badan ay ku tamininaysay. boqorkiina gabadhii ilmo badan ayay u sii dhashay, oo mar kasta ay gabar u dhashaba oo wiil iyo gabar ay dhashaan wuxuu ka fiirinayay dhagihiisii oo kale in ay leeyihiin. markuu dhagii ka waayana wuxuu dhahayay, kuwani waa ay badbaadeen. sidaas ayuu boqorkiina farxaddii in muddaha ka maqneed uu ku helay, isagoo dhagihiisiina aan qarinayn oo ay caadi la noqdeen. gabadhiisiina